ummad Soomaaliyeed ogaada ma mahadin doono Siciid Cabdullaahi Deni boobka uu nagu sameeyay iyo xooga iyo maxaan ku iraahdaa qaabka uu noola dhaqmay qaab bil'aadmi loola dhaqma maaha duwaaga xataa loolama dhaqmo waxaan kaloo ii sheegayaa waxaan ka mid ah odayaasha 135 Soomaaliyeed wali ma idaan maqal isin ka daba qaylinaya kursigiisii oo aniga ugu horeeya kursi bay itusaysa ama na tusaysa kursiga in loo xanibo naloo hayo bismillaahir rahmaanir rahiim wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam dhammaan waa salaamaya ummadda Soomaaliyeed ee ku kala nool daafaha caalamka meel kasto ay ka joogan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdigeed magacaygu waa Suldaan Maxamed Suldaan Axmed Jaamac suldaanka guud ee beelaha Yibraha ama isinka guud ee beesha Yibraha maanta waxaan halkaan ku qabanayaa war saxaafadeed aniga iyo odayaasha iga dambeyn doona waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto gaar ahaan ummadda reer Puntland waxaan la hadlayaa isimada Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa isimada reer Puntland waxaan la hadlayaa labada guddi ee guddiga doorashooyinka heer dawlad goboleed iyo guddida khilaafaadka ee heer dawlad goboleed waxaan kaloo la hadlayaa guddiga doorashooyinka heer qaran ama heer federaal iyo guddida khilaafaadka waxaan la hadlayaa dhammaan mas'uuliyiinta maamul goboleedyada Soomaaliyeed waxaan la hadlayaa ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliyeed mudane Maxamed Xuseen Rooble waxaan rabaa inaan idin la socodsiiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo inta aan soo xusayba annagu haddaanu nahay beesha Yibraha Soomaalidu ay u taqaan Yibraha waxaanu ku leenahay hal kursi oo federaalka ah baarlamaanka Soomaaliyeed wax kale oo aanu ku leenahay dhammaan maamul goboleedyada Soomaaliyeed haday tahay koonfur galbeed haday tahay gobolada waqooyi haday tahay gobolka Banaadir haday tahay Hirshabeelle haday tahay Galmudug midna ma uu jiro kursiga iyaga oo ah hoob 220 waxa uu yaalay Puntland gaar ahaan Boosaaso Puntland oo ah deegaanka ugu weyn ee qabaa'ilka iyagu degan yahay kuma lihin wasiir kuma lihin xildhibaan kuma lihin agaasime kuma lihin wasiir ku xigeen kuma lihin agaasime guud shaqaale kuma lihin hal qof oo shaqaale ah kuma lihin halka kursi baa noo yaalay kursigii noo yaalay beeshaydu kuma tartamin lama ogolaanin si xooga oo qasab ah yaa lagu meel marsaday maadaama isinkii guud ee beesha aan ahayna laygalama tashan waxna lagama weydiin nabadoonnadii kuwa halkayga taagan hareerahayga ugaaskii waa ka taagan odayaashayadii waa kuwa jooga cid lagala tashaday kursigaas ama wax laga weydiiyay ma jirto waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegayaa waad ogtihiin kursi kasta qabiil baa iska leh qabiil hadduu leeyahay waxa lagala xiriiraa ama wax laga weydiiyaa waa isinka guud weyn kursiga waan asteeyay hadda ka hor jifo reeraha ka mid ah baan u asteeyay waxaan u asteeyayna dib laba reer dhex maray iyo dil inaan ku kala badbaadiyo arintaa waxa ka hor yimid oo diiday astayntaydaas dawladda Puntland oo ugu horeeyay madaxweynuhu waxa jirtay dhammaan isimada gobolada bari iyo Nugaal iyo Mudug dhammaantood ay asteeyeen kuraastii ay ku lahaayeen baarlamaanka waxa ugu horeeyay oo asteeyay Islaan Ciise Islaan Maxamed waxa ku xigay
boqor burhaan boqor muuse waxaa ku xigay ugaas xasan ugaas yaasiin waxaa ku xigay beeldaaje maxamed beeldaaje ismaaciil waxaa kaloo asteeyey beeldaaje ismaaciil beeldaaje yaasiin dhammaantood astadoodii waa socotay waana la qaatay qaab kasta ha loo qaato laakiin aniga taydii waa socon weyday sababahay u socon weyday waxaannu u aragnaa quursi nala quursaday inaanaan ummadda puntland la mid ahayn inaanaan ismada puntland la mid ahayn inna loo arka dad liita oo waxooda la xoogi karo qofkii la doonana la siin karo taasi waxay ku tusaysaa midabta koorka iyo kala sooca ummadda ee ka taagan maanta puntland ka taagan oo aanay la qabin ummadda soomaaliyeed ka ab iyo ka awow baanu ahayn dad reer puntlandah quursiyo horaa nagaga yimid puntland 100 sano ka hor ilaahay ha u naxariisto awowgay ayax maxamed dhowre gabayadii uu ka tiriyey soomaaliya waa ogtahay quursiga puntland iyo wixii kaga dhacay gabayadiisii waxaa ka mid ahaa qabqab dhaafay bay laba qabiil qaran ku weydaaye qaabiilba haabiil markuu qoonsaduu dilay qawaaniinku waa inuu reer kula quwabaayo qooraha waxa looga simay way isku wada qayr qabbaannimo haddaad iga rabtiyo ii qasaal marada qadarkaa ilaahay guma qaban qoodhe xeraday sanad guuradeedii baa maanta taagan qabkii awowgay ka tegey kiisi baa maanta muuqda waxaan leeyahay soomaali waxaan u sheegayaa madaxweyne siciid cabdulaahi deni maanta wuxuu raadinayaa kursi heer federaal ah ama madaxweyne soomaaliyeed buu raadinayaa maanta una taagan yahay dadka yagii dadka ugu liitay oo ugu daciifsanaa kursigii kaliya ay ku lahaayeen puntland maanta inuuna dhaafiyo xoog nagaga qaado nama qabato waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeeday ogaada ma mahadin doono siciid cabdulaahi deni boobka uu nagu sameeyey iyo xoogga iyo maxaan ku idhaahdaa qaabka uu noola dhaqmay qaab bila'aadmi loola dhaqmo maaha dugaagga xataa loolama dhaqmo xoolo xayawaanka loolama dhaqmo qaabkuu noola dhaqmay xayawaanka waa waraabaha laga ilaaliyaa waxaa laga ilaaliyaa haraadkaa laga ilaaliyaa gaajadaa laga ilaaliyaa xeryaa loo sameeyaa annaga sida waraabuhu ula dhaqmo dadka ama xayawaanka ula dhaqmo ama xoolaha ula dhaqmo noola dhaqmay siciid cabdulaahi deni waxaan leenahay ummadda soomaaliyeeday isimada soomaaliyeedow dhammaantiin gaar ahaan isimada puntland dhammaan isimada puntland oo uu ugu horeeyo boqor burhaan iyo inta la midka ah waa nala dhacay kursigayagii xoog baa nalagaga qaaday nalalama tashan wax nalagama weydiin waxaan leenahay ha la arko waxa siciid cabdulaahi deni nagu sameeyey ha la arko ummaday arag ceeb bay ku tahay ma jeerteen bay ceeb ku tahay daarood bay ceeb ku tahay ma jeerteen bay ceeb ku tahay maxamuud saleebaan bay ceeb ku tahay xukuumadda maanta ka talisa ama ka dhisan puntland bay ceeb ku tahay waxa maanta annaga nalagu sameeyey taariikhdaanay geli doontaa taariikhda bay geli doontaa hadalkayga waxaan ku soo gabagabaynayaa guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed puntland heer federaal waxaan leeyahay kursigaas daacad ma laguma soo saarin kuma soo bixin weli maydaan maqal isin ka daba qaylinaya kursigiisii oo anigaa ugu horeeya quursi bay i tusaysaa ama na tusaysaa kursigaa in naloo xanibo naloo hayo khaasatan ra'iisul wasaaraha xukuumadda waxaan leeyahay kursigaasi sharci kuma bixin laguma tartamin tartan looma gelin xataa astadii haddii la diiday waxayd kursiga iyaga in lagu tartamo oo wixii musharaxii ku tartamaan lama yeelin astadii waa la diiday mar labaad baan idinku celinayaa laguma tartamin
ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay nala arka xukuumadda Puntland iyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni qoorsiga ay noo geysteen Soomaaliyeed nala arka maamul kastoo nala arag waxaan kaloo idin sheegayaa waxaan ka mid ah odayaasha 135 Soomaaliyeed baan ka mid ah odayaasha 135 ayaan ka mid ahay war aqoonsigeedii wakaa Soomaaliya ha aragto maamulka Puntland waraaqdii ay isiiyeen inaan isinkii guud ee qabiilkaas ahay ee wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxday wataa dhammaan sharciyadaydii waa kuwa ummaddu ha aragto aabbahay Soomaaliya waa wada taqaanay ayax dhowre Axmed Jaamac Xirsi ayax dhowre ilaa carta ragii dhidibada u soo taagay dawladda maanta Soomaaliya ku naaloonayso ragii dhidibada u soo taagay buu kamid ahaa hadalkayga waxaan ku soo koobayaa mar labaad Soomaaliyey dulmigana lagu haya arka Soomaaliyey dhibkana lagu haya arka reer Puntland oo arka dhibaatadana lagu hayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacayga waxaa la yiraahdaa ugaas maxamuud muuse maxamed dawra la yiraahdaa meeshaan waxaan maanta ku qabanaynaa war saxaafadeed annagoo ah beesha ibraha la yiraaho oo Soomaalidu u taqaan magacooda rasmiga oo yahay reer Sheekh Maxamed bin Xaniifa war saxaafadeedkaas wuxuu ku xusan yahay ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda wax mansabo oo aan ku lahayn waxa jira hal kursi oo golaha shacabka kamid ah kursiga wuxuu yaalaa dawlad goboleedka Puntland yuu yaalaa markuu yaalo wuxuu ka tirsan yahay kursigaasu awood qaybsiga beelaha wuxuu ku jiraa beesha shanaad markii awood qaybsiga beelaha la sheego siday wax u qaybsadeen baarlamaanka afar beelood iyo barkaanu ku jiraa kursigii noocaas ahaa oo markii horeba dulun nagu ahaa anigu waxaan ka mid ahaa ismadii carta ilaa iyo mataqaanaa maanta uu yaallo dawlad goboleedka Puntland ismadii meel kasta uu ku jiro ka soo saarahayay caqabad kasta uu la kulmo mataqaanaa soo dhirin hayay baan ka mid ahaa marxalad dheer buu soo maray kursigaas carta markuu ka yimid wuxuu yimid meesha la yiraaho xamar markii dawladdii Cabdiqaasin wuxuu u gudbay inbagaasi baa laga soo doortay dawladdii Sheekh Shariif wuxuu tegay Jabuuti meesha la yiraaho ugu dambayntii dawladdii Xasan Sheekh xamar baa lagu soo doortay halka isagoo yaala beeshu waxay u dhalatay oo deegaankeedu yahay oo mataqaanaa asalkeedu yahay maamul goboleedka Puntland dawladdii Cabdiweli khayr Allah siiye markii doorashada la galay Xasan Sheekh Cabdiweli baa soo qaaday wuxuu yiri kursigan dadka la yiraahdo reer ayax dhowra iska leh reer ayax dhowra waa dad Puntland waxaan rabaa in mataqaanaa Puntland la geeyo sidaas buu Puntland ku yimi intii jaranjarooyinka uu soo maray kursigaas wax Soomaaliya oo nagu hunguriyeeya ama nagu dulma xamar baa lagu doortay hawiye dhexdiisa wax noo garaaba ma aha wax na dulma ma aanan arag boosas kale oo lagu soo doortay sidoo kale maanta waxay taagan tahay Puntland annagoo ah dadkii asalka u lahaa Puntland oo u dhashay ka ab iyo ka isir oo aan meel kale oo haatan nala ku tirinaya iska yar tahay awoodda beeshuna tahay Puntland waxay taagan tahay annagoo taagtaagan in la dhaco xoog lagu qaato dulanka noocaasa
baannu maanta ka cabanaynaa. cabasho maaha waxyo qayladhaan baannu diraynaa, adduunkaannu diraynaa, soomaali weyn baannu diraynaa, hay-adaha xuquuqul insaankaannu diraynaa, guddiyada doorashada baannu u diraynaa. qayladhaanta noocaasa yaan rabnaa meeshaan inaan ka jeedinno. waxaa weeye quursiga qofka haddii la dilo waa laga samraa, laakiin haddii quursi iyo ilhaano lagugu sameeyo waxa weeye ilmahaaga ayay firsataa. waxaannu ka dagaalamaynaa gumaysiga noocaas oo dawladda puntland ugu samaysa, waa waxaan filanaynay aan ahayn. ninka la yidhaaho Siciid Dani waxaannu ka hadlaynaa gumaysiga noocaasa, ilhaanada ah, quursiga ah, naloo ku bareeray. waxaannu maanta ka dagaalamaynaa taas wey. waxa weeye maanta kuma eka warkayagu, ilaa fiinalka aannu ka noolahay ma qaadanayno gumaysi iyo quur. adeerka ayax maxamed dhowre 1930 buu ka dagaalamay oo diiday in la quursado. maanta oo adduunyadu casri tahay oo aannu joogno dunia casriya ma qaadanayno quursiga. majeerteen iyo maxamuud saleebaan iyo Dani iyo aaranjaan ugu wadaan ma qaadanayno. arrinta noocaasa yaannu maanta adduunyada gaadhsiinaynaa, hadday tahay xuquuqul insaanka, hadday tahay qaramada midoobay, hadday tahay soomaali weyn, guddiyada doorashada, ra'iisul wasaaraha Roble. qayladhaan baannu u diraynaa. waxaannu codsanaynaa kursigaas xaaraan baa mataqaanaa la rabaa in lagu qaato, in naloo hakiyo oo nimankaa burcadda oo boobahaya aan mataqaanaa warkooda aan loo xalaalayn. arrintaas iyada ah baannu qayladhaantaas ka diraynaa. waxaa noo wahesha ilaahay baannu dacwad u diranaynaa iyo qayladhaan. ilaahayna abuurto quwada lahaa oo nina uusan ka xoog badnayn. waxaa naloo arkay dadaan xoog lahayn oo la xoogi karo oo la boobi karo, laakiin tan allah ka weyn. ilaahay baannu dacwad iyo cadaalad ilaahay baannu u dirsanaynaa. ilaahay baannu qayladhaantaa u dirsanaynaa. war ma qaadateen qayladhaantaas? ma qaadateen? ilaahay inuu naga qabto Dani ma qaadateen? ilaahay mataqaanaa dhibka uu nala raba isaga inuu ilaahay ku celiyo ma qaadateen? waxaa weeye annagu ilaa mataqaanaa fiinalka weligayo inta quursigaas iyo gumaysigaasu jiro mana qaadanayno, kamana harayno arrintaas. anagu waxaanahay uwaas maxamuud muuse maxamed dhowre. waxaan ka diwaan gashanahay heer federaal ilaa burburkii Soomaaliya ilaa maanta inta ka dhexleh. waxaan ku shaqaynayay dhaqanka 5 dawladood oo soo martay hadda burburkii ka bacdi. dawlad kasta kaarkeedii baan haystaa, yaa idhikaarkeedii. waxaan ku tirsanahay ismada maanta isyaanada lagu tirin karo. magacaygu waa nabadoon Farxaan Maxamed Booyaax, nabadoonka beelweynta reer Sheekh Maxamed bin Xaniifa, Soomaaliduna ay Ibraah u taqaan. intaas salaan kadib maanta waxaan halkaan isugu nimid. waxaad ka wada waraysaan sida caado ahaan jirtay reerkan saxaafadda iyo loogama baran ay inta badan warbaahinta ka hadlaan, laakiin maanta inaan soo kacno oo hadallo dan baa keentay. waad dareemi kartaan waxa maanta beesha reer Sheekh Maxamed bin Xaniifa oo Soomaalidu iyo Ibraah u taqaano waxa maanta ka dhawaajinaya waa culays weyn oo maanta qoomiyaddaas ku habsaday. waxaan rabaa inaan ummadda la wadaagno sida ay isimada kala duwan oo beeshu la soo wadaageen. marka koowaad waxaannu qayladhaan u diraynaa. dadku baaq bay diraan, codsi bay diraan, laakiin annagu maanta qayladhaan baan diraynaa. qayladhaantaas waxaan u diraynaa
muslin iyo gaalba waa u diraynaa ma kala soocayno insha allahu tacaala cid kasta oo saamayn ku leh soomaaliya baanu insha allahu tacaala leeyahay gaarsiiya annaguna aan gaarsiinaynaa waxaa jirta beeshaasaa keligii iska leh waa kursi madiya oo aan wax kala tarraxin beeshaasu way degtaa inta soomaaliya u degtaba waa degtaa waxay eeganaysa oo meel walba maanta ka soo fiirinaysana waa kursiga madiga intanada halkaan joogto isimadii beesha ugu sarraysana waxay isu kaaya keenay waa kursigaas teelo iyo taladiisaanu muddo haddaanu odayaashana ku soo jiray kursiga aanu gacanta ku haynay oo qabiilkaa ku magacawnaa waxaan rabnaa inaannu ummadda islaamka iyo gaalaba gaarsiinno inala ka dhacay oo uu naga dhacay madaxweynihii dowladda puntland siciid cabdulaahi deni waxaan rabnaa inaannu codsiga idiin soo gaarsiinaynaa qayladhaantannadaas in kursigaa laga dhigo kursigaa in laga dhigo oo cid kasta oo baawir ku leh dalka iyo dibaddaba ay ninkaas ka dhigaan kursigaas intaas waxaa uu helisa ummadda reer puntland oo aannu deegaankaan deggannahay hadda oo dadkaanu inta badan ay u badan yihiin waxaan iyagana ugu baaqaynaa dhammaantood oo aan qayladhaan u gaarsiinaynaa waxaa leeyahay xaqa haddii indhaha laga qabsado adoo indhalaabaa maalinta yowmalqiyaama lagu keenaa haddii dhigaha laga furaystana adoo dhigalaabaa lagu keenaa waxaan leenahay codkanagaas waad maqashaan dhawaaqannaga waad maqashaan dulmiga cad oo iyo arkiwaaga uu nagu haya madaxweynaha puntland oo uu kursiganagii duhur cad nagaga faramaroojiyey allihiin alla hadduu yahay kursigaa wax ka qabta waad ka qaban kartaan laheebna waad u tihiin ehelna waad u tihiin waadnu u dhowdihiin waxaan leenaha wax ka qabta waxaan halkaan kala hadlaynaa madaxweynaha dowladda puntland siciid cabdulaahi deni waxaan leenahay madaxweyne kursigan waxaa iska leh beesha yibraha oo soomaalidu ay yibraha u taqaano oo reer sheekh maxamed bin xaniifa waxaa iska leh beel adaris la yidhaahdo ama beesha shanaad waxaa iska leh qolada ugu sii hoosaysaoo la yidhaha ruutiska shanta ugu hoosaysa mudane madaxweyne kursigaanu maaha kursi daarood maaha kursi kablalax maaha kursi majeerteen maaha kursi maxamuud saleebaan adigana waxaan ku leenahay lahaa alla hadduu yahay kursigaa faraha ka duway iskugu qarxee inta ku hareeraysan oo deni la joogtana waxaan leenahay adinkuna haddii allihiin alla yahay allihiin alla hadduu yahay oo dad wax isku falayo wax garanayo waad aragtaan dulmiga naloo geysanaye ninkaa dulmiga ka qabta haddayna dulmiga ka qaban karinna allihiin alla hadduu yahay adinkuna dulmiga naga yareeya naga deen maysaana waa ognahay intaas waxaa ii wehelisaa haatan waxaa la wadaa hawshii waxaa la guda galay doorashadii kursigaas anugu waxaan ahay nin ka dawaangashan wasaaradda arrimaha gudaha dowladda puntland waxaan haystaa idhikaaradeedii iyo waraaqaheedii sida aad aragtaan waa aad aragtaan nin ka dawaangashan baan ahay deegaankan in badanoo nin odayahoo ilaa yaraan ilaa weynaanta hadda aan weynaa ku soo shaqaynayaana waxaan kala shaqaynayna maslaxadda iyo amniga deegaanka haatanna waxaad mooddaa inaysan ilmahanagu xataa aysan firsan doonin inaannu puntland ku sii xasuulanaanno kuna sii nagaanno meesha nidaamkeedu iyo mas-uuliyiinteedu ay saa u dhaqmayaanna aan ilmahaaga lagu sii hallayn karin ubadkaaga insha allahu tacaalaana waa ka tashan doonnaa haddaannu qoomiyadna nahay ama qabiilna haddii lahayn mana aamusi doonno dadku waa dhintaan waana noolaadaan duugista uuna duugay madaxweynaha dowladda puntland iyo inta ku hareeraysanba annagu ma aqbali doonno waa noolah ilaa intaannu hadli karra waa hadlaynaa maanta awooddannadu waa hadal
nin baa gabay tiriyo wuxuu yidhi ilaah waxbuu u ogol leeyahay gadaha qaarkoode 5 nin oo aan gadaal laga jirin oo garba ku taaglaysa goonyaha maxaa kaaga imaan waa gabaahirigi haddaad istiri gurmad ma leh oo tol ma leh oo ehel ma leh oo tignika ma leh waxaad ogaataa madaxweyne ilaahay inaan rabbigay ku kalsoonahay ilaahay leenahay ogaaw hadalka waa ka baxay mana aamusi doono maantana ku ekaan meen wararka halkan ka baxaya waa la dhegaysan doonaa ismadii ugu sareeyay beesha Ibraha hadalkooda waa maqlaysaan waana ku taageersanna taageeraduna xagga rabbi bay jirtaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar baanu leenahay ilaahay baa awood leh sagaanu rajaynaynaa inuu wax noo qabto dulmigana waa dhagaysateen odayaashii ka sheekeeyay ee dhaqanka gudida doorashooyinka gudida khilaafaadka dawladda Puntland ismada beelaha waxaan ka codsanaynaa kursigaas inay baragshar ka saaraan oo noo qabtaan meesha uu marayo inay nooga soo celiyaan ilaahayna waa la soo celinayaa dawladda Puntland waxaan leenahay kursigaasi madaxweynaha Puntland Maxamed Siciid Cabdullaahi Dani waa nin aanu rabno inuu wax noqdo waa nin aan jecelahay waa nin iskaashi iyo haddii ilaahay ku imaado gurmad iyo difaac iyo weerarba naga dhaxeeyay inaanu dhan u wada jeensanno wuxuu kursigayaga ku hungureeyay inuuna dhaafiyo ismada ku tunto waxaan u arkaa waa wax sababi ku dhex jirto oo kursigiisa inuu galaafan doono aad baan xabsi uga qabaa Siciid Cabdullaahi Dani waxaan leeyahay kursigaas iyo kursigaaga galaafan meel dheer baad higsanaysaa kursigaas iska dhig dhulka dhig kursigaas annaguna intaan kursiga maamulkiisa iyo gacan ku hayntiisa iyo taladiisa intay nagu soo noqonayso waa wadaynaa ka hadalka aanu ka hadlayno kursiga oo dastuurka waafaqsan loo asteeyey waa idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu allahu akbar allahu akbar allahu akbar kursiga ilaahay baa haya